أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن نفسه ونفقه وهمزه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. سلام قول من رب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبلها شرفت بدن وأجيدين وادين soo dhignay alaabtii oo la soo raro qaarka laga soo deynsaday inta dhindhineed meel wixii dhinnaa iyo wax kasta isku soo wada daraa'iru. alxamdulillaah lacagtoodii 3 meelood waa u haynaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa hal meelaa noo dhiman oo midii uga sii darneed ahayd. shalaan dhiibaha dhihin, daraadaan dhiibaha dhihin, maalinta ku xigtaan dhiibaha dhihin. ilaahay intuu ka dhammaanaa dhexdaan xiranayaa dheh. ilaahayna meel aadan ka filanayn taasaa isku hubtaa. tan hadda guriga noo taalo wallaahi iibilaah inaan isku hubin ee taa baxsataa isku hubtaa siduu nebi maxamed noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. maanta waa murugsanahay gabdhahayga sharafta badan. wadaadkii masaajidka nebi maxamed madiine calayhi salaatu wasalaam nooga soo duceyn jir sheekh cabdiraxmaan ilaa shalay u raadinayay. maantana markaan ka qabtay wuxuu yidhi dabkayga xalay waa damay, korontadiyaa laga goostay. waa nin curyaana, waa nin qalal qabo, waa 23 sano madiina degan yahay. macallin dugsi ka ahaan jira, hadda waa jiroole. 23 sano ayuu meeshaas deganaa, ilmihiisa ka wada dhalay 2 xaasle. waa yeel ahoo qalal qabo baralsayd inta hooska oo macwista loo xiraayo. laakiin qur-aanka iyo iimaanka weligay wax isi ima u oran hal mar ma ahane. maanta laakiin tii adduunkay taaga waa dhowrsadaa. tii adduunkay maanta taagan tahay. ma ilaahay dartiis waxa ula baxad aad liibaantidee adduunyo iyo aakhiraba liibaanta weyn aad heshidee ma ilaahay dartiis waxa ula baxad maalin maalmaha ka mid ah ayay ku anfacaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdee. gurigiyaa ligu dhegan yahay, nalkiyaa nagu damay. madiino masaajidka nebi maxamed aan soo orday yuu aan fadhiyaa sala allahu calayhi wasalam. meeshaas ha kaaga soo duceeyey. jaaniskan maa ka faa'iidaysatay? yaa ka faa'iidaysanaya jaaniskan? adiga 17 muu yiri ma aqaano riyaalkooda waxay isku noqonaysaa $450 iyo 50 iskaga dar $500 ayuu maanta nooga baahi badan yahay. korontadiisana waa downta, ilmo yaryarna waa haysayaa. sacuudi waa meesha barakeysneed. maxay masaakiinta iyo imaanada iyo macallimiinta iyo dadkaas maxay wax ugu qaban laayihiin sacuudiga? hadday maanta i dhagaysan lahaayeen waa ku farxi lahaa inay masaakiinta nalkooda damsan. ilaahay nalkeenna ma damiyo. ilaahu nalkeenna ha diminin. ilaahu nalkeenna ha diminin. ilaahayou mugdiyaan kaa magan galnay. gabdhahayga sharafta badnaa yaa u soo baxaayo ilaahay owlaad hadduu raadinayo ku siiyaa. meeshaas ugu soo ducey sujuuddaan leeyahay yaa maanta u soo baxaayo ka bixinaayo nalkiisaa damsa fadhi iima yaalo. iimaankiyaa kuu soo haray. lixdaan siinayo waxaan dhaha kuuma haayo waxba. naagtii ii dhalayso iimaankii baa ka horreeyey. naagtiida ii dhalayso masaajidkaasaan 4 saac joogaa sida lacagii iimaanka ilaaliyaa. naagta waa ii dhalaysaa. $6 quud noo ahayd. ilaaha wax bixiyo. waxaan rabaa inaad maanta raashin ii soo qaadaan gabdhahayga reer wasaaraco ilaa maqfirata min rabbikum. iimaanka waa idinka codsaday ilaahay inuu owlaad kugu siiyo, ilaahay inuu gurigaaga kugu xafido, jeelka ilaahay inuu kaaga soo daayo. yaa labadan qof waxaan helna waa iskugu daraynaa. ninkan nalkiisa waa damsan yahay, waa nin culummo ah, waa nin xishood badan, waa ooye. war ilaah baa ku dhaartay jawiga iga kala qaldamay. warrifaan dhahay aniga dhan nalkaaga ma damsanaa. ilaahay baa iga sarreey meeshuu ku dhex dhaaranaya. waa meeshuu ku dhaaranaya, waa meeshaan u ooyno qof walbo. waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida madiino munawara ayuu ku dhaaranaa ilaahay inuu nalkiisa ka damsan yahay. oo ninkaasna been kuma baran. kuwaan oo wax isii dhahaya xataa ma aha. wax kasta wuxuu dhihi jiray ilaahay baa igu filan. waa iska ooye wallaahi. yaa maanta u soo baxaayo ilaahay dartiis ugu soo baxaayo oo jeelka ilaahay ugu soo daya. sujuudda ugu bari ilaahayna ugu duceey. heblaayo yaan dhahayaa ilaahu hadduu kaaga xiran yahay kaaga soo daa. haddaa owlaad raadinaysa ilaahu ku sii. haddaa wiilal badsi rabtid allow kugu irsaaq. allow waxaad tabanaysa adduunya aakhir way kala badantahay. jannada ugu horraysa dhammaanteen ilaahu nagu war isaaq. oo waxaan tabanayna ilaahu na wada sii. albaabada kheyr kale noo fur. maba idin weydiiyeenba. jaaniskaas ma dhumiyo, waa ka faa'iidaystaa. ilaahay camalka ugu jecel yahay makuu sheegaa. dadka wax u tara waay. dadka wax u taraa ilaahay wuxuu yidhi aad ducadooda u aqbalaa. aana maaragtay aana ugu jeclahay addoommadeeda. nalkiyaa iga damsan
dhahdan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hooyo soomaaliyeeday aduu kugu socdaa hadalkan in yar ma fakaraysid miyaa nin miskiin alla ilaahayow rabbiyow raxmaanow yaallow adiga mihi alla kale ma jira xaq lagu caabuday saan ugu naxay adaan naxay oo naxariista ilaaw naxariistaad gabdho kheyr qaba u keen oo muraadkooda ugu sahal saan oo kale wallahi dadka ugu farxin jireen cudurrada kansarka looga waaye ilaahay awlaadu ku siiyey waa ooynooyaa maanta aad baan ugu naxay iyo aad markuu yiri nolkaygaa damsan madiinaan imaaday masaajidka nabi maxamed aan iska fariistay waan kuu cabanayaa gruubka u soo dhigaan nahay aniga dadkan itas itaabsiiyaan jeclahay soo ka xishoonayaan ku qasbay kaale walaalay wax igula qabo kaale $450 wallaahi dhiib adduunyada sujuudda lagugu soo duceynaa adigoo meeshii sharafta badneed ee fadhida ku haminaynina walba ku noqnoqono madiina munawara iyo wallahi waan ka naxsanahay cawada mugdiga muuseexana ilaahu qabriga mugdigiisa rabbi oo raxmaano qofka u soo baxay ilaahu qabriga mugdigiisa tusin ilaahu waalidiin hadday ugu jiraan rabbo raxmaano iftiin saacadan waalidiinteen ugu yeer ilaahu hadday awlaad raadinays ku sii allahu hadday xanuunsan tahay xanuunka ugu qaad allahu hadday kurbaysan tahay kurbada ugu qaad allahu hadday deemaysan tahay rabbi oo deenka ugu gud jeel hadday ugu jiraan salaaman qowla saacadan ilaahu ka soo bixi adigay ballantaada taa udcuuni astajab lakum dadkan waxaan jeclaa dadka wax u taro kaale maan aan dhihi doonta anoo markaan ka naxay aan siiyey ilaahu maanta haddii saas ahayd maanta igu dhegantay iga fur waa lagaa qaadayaa xataa dhibaatada haddii waxay dar alla kaataa u bixisid waa iska dhibtootid ilaahu maalin heblaayo dartaayaan u bixiyey ilaahu dartaayaan ugu naxay ilaahu maanta iga fur ilaahay waa kaa qaada suuratalkaaf maaragtay culayska ilaahay wuu kaaga qaada